Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu mamnuuc dhammaystiran ku soo rogi doono 12 dowladood oo ka mid ah dowladaha caalamka in muwaadiniinta dalalka u dhashay Maraykanka ay soo galaan, halka 7 dowladood oo kalena hab qayb ah loogu soo rogay muwaadiniinta u dhashay Maraykanka ay galaan. sidoo kale Maraykanka wuxuu sheegay inuu mamnuuci doono ardayda ajaanibta ah ee raba inay dhigtaan jaamacadda Harvard. kulanti wanaagsan, magacaygu waa Saadiq Sheekh Maxamed. haddii booqashadii koowaad ee bartan ay tahay, fadlan nagu soo biir. haddaba madaxweynaha dalka Maraykanka Trump ayaa maalinkii Arbacada ahaa ee asbuucan kuna beegnayd 4 bisha May 2025 sheegay in Maraykanku gabi ahaanba uu joojin doono soo galitaanka muwaadiniinta u dhashay 12 dowladood inay soo galaan gudaha Maraykanka, halka 7 dowladood oo kalena uu sheegay in hab juz'i ah ama qayb ah looga mamnuuci doono inay soo galaan gudaha Maraykanka. haddaba 12 dowladood ee muwaadiniintoodu sida dhammayska tiran looga mamnuuci doono inay soo galaan gudaha Maraykanka ayaa waxaa ka mid ah 1 dalka Afghanistan, 2 dalka Myanmar, 3 dalka Chad, 4 Jamhuuriyadda Congo, 5 Guinea al-Istiwaa'iya dalka la yiraahdo, sidoo kale dalka Eritrea, Haiti, Iran, Libya, dalka Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen. halkaasi waa 12 dowladood ee sida dhammayska tiran looga mamnuuci doono inay galaan gudaha Maraykanka. sidoo kale waxaa jira dowlado si qayb ah loo mamnuuci doono in muwaadiniinta dalalka u dhashay ay galaan gudaha Maraykanka, waxaana ka mid ah dalka Burundi, Cuba, Laos la yiraahdo, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan iyo dalka Venezuela. hase yeeshee waxaa jira dad xaalado gaar ah lagu eegi doono, kuwaasoo iyagu aan la mid ahayn xaaladihii aan soo xusnay, lagana yaabo dowladihii aan soo xusnay ee 12 ahaa iyo 7 dowladood oo kale in ay u dhasheen. waxaana ka mid ah dadkaas qof kasta oo si rasmi ah qaanuunina ahna u joogo dalka Maraykanka. sidoo kale waxa ay kulansanaysaa arrinkaasi dadka jinsiyadaha kala duwan leh. sidoo kale waxaa ka mid ah diblomaasiyiinta Maraykanka soo gala isla markaana ku soo gala fiiso waqtigaas arrinkan uu hirgalayo haysta, dadkaas oo aan u diiwaan gashanayn inay yihiin dad muhaajiriin ah. sidoo kale waxaa ka mid ah ciyaaryahanada iyo guddiga sportika ee wada ciyaaryahanadaas iyo ehelkooda la socda, kuwaasoo waliba ehelka tooska ah markaan macnayno waxaa laga wadaa waa sida xaaska, caruurtooda kale, waalidkooda kale. sidoo kale waxaa ka mid ah dadka Maraykanka ku iman doona si ay u soo xaadiraan koobka dunida ama ciyaaraha loo yaqaano Olombikada ama wuxuun ciyaaro ah oo gaar ah, kuwaasoo lagu tirin karo inay yihiin dhacdo aad u weyn. sidoo kale waxaa ka mid ah dadka haysta fiisaha muhaajiriinta khaaska u ah dalka Afghanistan. sidoo kale waxaa ka mid ah dadka haysta fiisaha muhaajirnimo ee khaaska u ah shaqaalaha ka tirsan dowladda Maraykanka. sidoo kale waxaa ka mid ah fiisaha u gaarka ah dadka muhaajiriinta ah ee laga badan yahay isir ahaan iyo diin ahaan, kuwaasoo waxay ku tilmaameen dhibaatooyinka ama tacadiga gaarka ah kula kulma gudaha dalka Iran. haddaba su'aasha la isweydiinaya ayaa waxay tahay, goorma ayaa digreetadan madaxtinimo ee Maraykanku ay hirgeli doontaa ee lagu mamnuucayo dowladaha aan soo xusnay muwaadiniinta u dhashay? haddaba wuxuu hirgelayaa arrinkani isla 9 bishan aan ku jirno ee sanadka 2025, taasoo ka dhigan in ardaydii gaar ahaan markaan ka hadalno Soomaalida ee waxbarashada ka heli lahayd Maraykanka, oo run ahaantii dad badan oo dhalinyaro ah ay ka mid tahay, ay halkaas barnaamijkoodii uu ku basbeeli doono, iyadooba waliba aan anigu xog ka hayo qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo email loo soo diray isla shalay, isla markaana loogu sheegayo in waxbarashadii loo ballan qaaday ee processkeedu uu socday ama hanaankii uu qofkaas ardaydaas ay Maraykanka ku tagi lahaayeen sidaas lagu hakiyay. runtii marka waxaan leenahay waa dhibaato ka mid ah dhibaatooyinkii shacabweynaha Soomaaliyeed ama ardada Soomaaliyeed si gaar ah u haysatay, waayo fursadihii run ahaantii la dhihi karay caalamka kale ayay wax kula qaybsan kareen, ama fursado dalalka kale aan ka banaanayn bay Maraykanka ka heli jireen ayaa iyaduna halkaas ku basbeelaysa.